wafdigan oo uu hogaaminayay wasiir dowlaha howlaha guud iyo guriyinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye ayaa waxa qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug waxaana soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan Galmudug maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda maaliyadda Galmudug Saciid Siyaad ayaa mas'uuliyiintan ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cadaado wafdigan wuxuu noogu yimid soo dhaweynta madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la filayo maalmaha soo socda inuu Cadaado soo gaaro waxaanan dhammaanteen diyaar u nahay soo dhaweynta madaxweynaha haddii alla idmo waxaanan rajaynaynaa sida ugu heerka sarraysa inaan u soo dhaweyno wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye ayaa sheegay inay u yimaadeen ka qayb qaadashada soo dhaweynta madaxweynaha qaranka oo dhawaan ku soo wajahan magaalada Cadaado anna waxaan nahay si horeba loo sheegay wafdi wasiirro iyo senataro iyo xildhibaano ka kooban iyo odayaal iyo khiyaar kale oo badan oo wafdiga qayb ka ahaa waxaan idinkugu nimid inaan idinkala qayb galno soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaan kaloo deegaanka ugu nimid maadaama ay mas'uuliyiintan ka kooban yihiin mas'uuliyiintii deegaankan laga soo doortay ka soo jeeday ku matalayay dowladda federaalka inaan ka tashanno wax kasta oo jira soo dhaweynta madaxweynaha ka hor iyo kadib insha Allah Xasan Maxamed Ismaan Somali Cable TV magaalada Cadaado